badbaadintu waa dhibaato weyn Allah wax badbaadiye qaasatan magaalooyinka waaweyn taasi oo ay sabab u tahay buuxa tirada gawaarida oo uu qof kasta wato marka uu dab meel ka kaco waxa aad u adag in si degdeg ah goobtaasi loo gaaro waxa gubanaya ee aad arkaysaan waa dabaq aad u dheer waliba fiida ugu sareysa ee dabaqa gawaarida dabdamiska ayaa la meel ay u maraan wadada oo jaam ah darteed balse casriga cusub horumarka iyo tiknoolajiyada caalamka ayaa ah mid taasi ka dhigaysa mid aad u sahlan baabuurkan ayaa ah mid bedelan kara qaabka socodkiisa waxa uu ka dhigayaa laba taayir oo uu si sahlan ugu gaari karo goobta dabdamiska qaybta korena waxa uu dalacayaa xagga sare waxaad maqli jirtay baabuurta duulaya iyo baqaarka wada balse tani way ka duwan tahay sida waxa uu wataa qalab kor u baxaya kaasi oo soo daminaya goobta dabka uu ka shidan yahay sidoo kale wuxuu awood u leeyahay inuu soo daadgureeyo dhammaan dadka goobta ku goodoonsan Daahir Inzal waa shirkadda la timi fikradan gaadiidkan gyroscopic waxaana la rajaynayaa in mustaqbalka dhow fikradan ay noqoto mid ka soconaysa dhammaan caalamka oo idil gawaaridan ayaa kaliya ku ekeyn dabdamiska sidoo kale waxa adeegsan doona shacabka iyadoo oo lala kulmi doonin wax traffic jam ah ama wadada oo ciriiri noqota waxaana ay ka kooban yihiin qaybo ambulance ah qaybo dabdamis ah iyo sidoo kale gawaarida shacabka sida laga soo xigtay shirkadda Inzal ayaa sheegtay in qaabkani uu yahay mid la tijaabiyay waxaana lagu dhisi karaa dhismaha magaalooyinka mustaqbalka